dagaalkii ka socday waddanka Ukraine ayaa sii xoogaystay iyadoo labada dhan ee halkaasi ku dagaalamaya ilaa hadda ay kala sheeganayaan guulo waaweyn ha yeeshee waxa soo baxay oo xogaha dagaalkaba ka sii daran warar sheegaya in Ukraine isu bedeshay Hiroshima cusub dawladaha reer galbeedka ee taageera Ukraine ayaa sheegaya in Ruushku gulufka dagaal ee halkaasi ka wado uu adeegsaday hubka kiimikada ah ee wax kumaada kaas oo ka caagan goobaha dagaalka waxaana ay si weyn uga digeen inay tani sababi karto halis aad u xun oo horseedi karta dabargoyn loo geysto dadka weerarka lagu yahay ee reer Ukraine kuwaasi oo aan markii horeba lahayn awood ay iskaga caabiyaan dawladda awoodda badan ee Russia safiirka qaramada midoobay u fadhiya Mareykanka Linda Thomas ayaa sheegtay in Ruushku adeegsaday qaar ka mid ah hubka kiimikada ah ee tarabtarabta wax u gumaada madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo shalay Jimcihii wax laga weydiiyay adeegsiga Ruushka ee hubka halista ah ayaa sheegay in haddii tani ku cadaato Moscow uu Mareykanku tallaabo adag oo la mahadin uu ka qaadi doono waddanka Ruushka hadalka Biden ayaa yimi wax yar kadib markii ay iska soo daba dhaceen wararka iyo dhaleeceynta loo jeedinayo Ruushka ee ka dhanka ah hubkan wax gumaada ee kiimikada ah kaas oo wax yar ka sokeeya hubka halista badan ee nuclearka waxaana saraakiisha reer galbeedka iyo khubarada reer galbeedkuba ka tuhun qabaan in hubkan uu Ruushku adeegsaday uu xaddi badan soo geliyay dalka Ukraine geesta kalena dawladda Ruushka ayaa Mareykanka ku eedeysay in uu dalka Ukraine ka samaystay shaybaadh lagu beero xanuuno khatar oo loogu talagalay in lagula dagaalamo ciidamada Ruushka ee dalkaasi ku soo duulay afayeenka wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegay in Mareykanku Ukraine ka sameeyay shaybaadh lagu sameeyo xanuunada faafa ee dilaaga ah kuwaasi oo lagu soo mudayo shimbiraha ay ka mid tahay fiidmeertu afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Ruushku gacanta ku dhigay shimbiro leh nambaro sumada ah kuwaasi oo looga shakisan yahay in ay sideen xanuunkan halista ah ee Mareykanku ku beerayo waddanka Ukraine waxaana xogaha qaar ay sheegayaan in Ruushku weeraray goobaha hawlahani ay ka socdeen oo ku yaala waddanka Ukraine ha yeeshee dawladda Mareykanka ayaa si weyn u beenisay warka ah in Ukraine ay ka sameeyeen shaybaadh lagu beero xanuunada faafa isla markaana keena dhimashada tarabtarabta ah ergeyga qaramada midoobay ee Ruushka oo shirkii Jimcihii ee golahaasi ka jeediyay hadal jeedin qaadatay 20 daqiiqo ayaa sheegay in Mareykanku uu dalka la jaarka ee Ukraine ka wado shaybaadh uu ku abuurayo virus iyo weliba hub kiimikeed oo wax gumaada waxaana uu safiirku intaasi ku daray in Ukraine lagu diyaariyay shimbiro iyo weliba dulinka ay injirtu ka mid tahay kuwaasi oo loo adeegsanayo in lagu faafiyo xanuunada halista ah balse qaramada midoobay ayaa sheegtay in aanay iyadu taasi waxba ka ogeyn isla markaana ay iyadu u taagan tahay heshiiskii 1975 ee laga heshiiyay in aan la adeegsan karin hubka noocan oo kala sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa gaashaanka u daruurtay eedan uga timid dhigeeda Moscow iyadoo sheegtay intaasi tahay dacaayadihii ay faafin jireen iyada iyo Shiinuhu sidoo kale madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky oo isaguna muuqaal uu soo duubay kaga falceliyay eedda Ruushka ee in dalkiisa laga wado goob lagu sameeyo xanuunada iyo hubka kiimikada ah ee wax gumaada ayaa sheegay intaasi ay tahay been aan raad lahayn isla markaana dalkiisu aanu ahayn goob waxaasi laga samayn karo sidoo kale safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa iyaduna sheegtay in aanay jirin haba yaraatee wax shaybaadh oo dalkeedu ku leeyahay Ukraine kaas oo loogu talagalay in lagu falkiyo cudurro keeni kara inay dunida oo dhan ku faafaan eedda labada dhinac ayaa imanaysa xilli la isku mari waayay dagaalka Ukraine isla markaana Ruushku ilaa hadda uu muujin waayay wax tanaasula oo ku saabsan dagaalka uu ku soo qaaday waddanka Ukraine eedahan ah in la isku adeegsaday xanuuno iyo hubka wax gumaada ayaa ah kuwa halistooda leh oo haddii ay run noqdaan horseedi kara dhibaato ku timaada aadanaha dunida oo dhan